Bismillahirrahmanirrahiim. Saaxiibayaal daawadayaal meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa bartaan YouTube-ka ku leenahay ee runsheeg. Saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah inuu ku eegi doono Rooble iyo kooxdiisa oo lacag badan kala baxay bangiga dhexe iyo fadeexad weyn oo hareysay. Saaxiibayaal hay'adda lacagta adduunka IMF World Bank iyo beesha caalamka dowladda Imaaraadka waxay gaarsiiyeen dacwad ka dhan ah safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Saaxiibayaal warbixintaas oo faahfaahsan intaynu guda galin waxaan idinka codsanaynaa haddii aad channelka ku cusub tihiin inaad subscribe inoo saadaan, like-na inagu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idankaal. Saaxiibayaal sida hordhac warkayga baad ku daawateen haddaynu ku bilowno Rooble iyo kooxdiisa ayaa hadda lacag badan kala baxay bangiga dhexe. Sidoo kale waxaa fadeexad weyn ay hareysay Rooble iyo kooxdiisa. Hay'adda lacagta adduunka IMF World Bank iyo beesha caalamka ayaa sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta gaarsiiyay dacwad ka dhan ah safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya oo u gafay xeerka maaliyadda Soomaaliya taasoo qatar ku ah hanaanka deyn cafinta Soomaaliya. Beesha caalamka IMF iyo World Bank dhammaantood waxa ay hadda ku rajo weynaa inay cafiyaan deynta lagu leeyahay Soomaaliya taasoo habab kala duwan iyo meertooyin badan soo madhay, balse hadda waxay u muuqataa inay arkaan musuqmaasuq weyn oo ay ka dhex arkaan dowladan cusub ee hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. damul jadiid oo kolkii hore deymaha dalkeena lagu leeyahay badi iyada ay soo jiiday ayaa hadda waxay u muuqataa inay dhac foolxun ka geysanayso gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale guud ahaan hantida ummadda Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho waxaa laga soo sheegayaa dhacdooyin aad u foolxun kuwaas oo ku saabsan dhaca hantida ummadda Soomaaliyeed. Bangiga dhexe waxaa laga saaray 9.6 milyan oo Imaaraadka laga qabtay 2018 gudaha ay laboorka taasoo ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan horumarka iyo sidoo kale dib u dhiska dalkeena. Hay'adda lacagta adduunka ayaa hadda u muuqata inay joojin doonto dhammaan habkii uu ku socday deyn cafinta iyadoo hadda ay u muuqato in Soomaaliya deymo badan oo lagu lahaa tabtooda ay sii ahaanayaan maadaama hanaankii deyn cafinta burburay, maadaama safiir dhan iyo sidoo kale wasiir ay yimaadeen bangiga dhexe taasoo lacag dhan 9.6 milyan ay kaga baxeen bangiga dhexe. waxayna taasi u gafaysaa oo galaafanaysa xeerka maaliyadda Soomaaliya, waxaana hadda ay qarka u saaran tahay Soomaaliya in laga joojiyo nidaamkii deyn cafinta muddada badan uu ku soo dhibtoonayay madaxweynaha hadda xukunka baneeyay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ila xogogaal ayaa saaxiibayaal waxay hadda inoo xaqiijiyeen in cadaadiska iyo dacwadda kadib dowladda Imaaraadka ay go'aansatay inay u yeerto safiirkeeda shaqadana laga joojiyo. Saaxiibayaal culeysyada badan ee hadda Imaaraadku soo saarayaan dowladani cusub ayaa kol hore waxaa kaga digay madaxweynaha hadda xukunka baneeyay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhowr jeer ay hor kulmeen madaxweynaha hadda xukunka la wareegay mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Farmaajo waxaa culays badan uu ka soo fuulay dhinaca Imaaraadka Carabta. Saaxiibayaal dacwadan World Bank-ga beesha caalamka iyo IMF ay u gudbiyeen Imaaraadka Carabta ayaa ah in safiirka lagu haysto sababta isaga iyo wasiirka amniga ay u tageen bangiga dhexe ee dowladda ugana soo qaateen lacag dhan 9.6 milyan maadaama ay baalmarsan tahay hanaanka deyn cafinta sidoo kalena ay galaafanayso xeerka maaliyadeed ee Soomaaliya. muddooyinkii ugu dambeeyay ama 5 sano ee ugu dambeysay uu xukunka hayay madaxweynaha hadda xukunka baneeyay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa soo hagaagayay hanaanka deyn cafinta, balse hadda ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo kooxdiisu waxa ay boob ku hayaan hantida ummadda Soomaaliyeed. sidoo kalena waxaa socda waa waxaan indhaha laga qarsan karin shacabweynaha Soomaaliyeed oo markii horeba filayay in dowladda dhalan doonto ay tahay dowlad ku saleysan boob iyo dhac ayaa hadda indhahooda waxay ku arkayaan waxaan la arag oo la maqal muddo 5 sano ah iyo wixii
ka dambeeyay. xafiiska ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa la soo warinayaa in labadii toddobaad ee la soo dhaafay ay ka baxeen waraaqihii ugu badnaa oo taariikhdooda iyo tixraacdoodaba la khalday iyadoo loo kala diray hay'adaha dowladda oo ay ugu horeyso wasaaradda maaliyadda taasoo laga doonayo lacag malaayiin dollar ah si loo xalaaleysto lacagta hantida ummadda Soomaaliyeed. wasiirka hadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa kursigiisa ku waayay si uu u ilaaliyo hantida ummadda Soomaaliyeed, balse hadda waxa uu muuqdaa mid aan ilaalin karin hantida ummadda Soomaaliyeed maadaama dowlad cusub ay dhalatay taasoo aan u ogolaaneyn inuu sii fadhiyo booska uu hadda joogo aysan macquul ahayn inuu dib ugu soo laabto. sidoo kale waraaqahan ayaa loo kala diray saraakiisha ciidamada iyadoo la leeyahay in hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka la kala diro oo aysan sii shaqayn hubkana laga dhigo. sidoo kale waraaqaha qaar waxaa lagu amray wasiirada in ay joojiyaan ay shaqaale cusub qaataan. saaxiibayaal ila xogogaal ah ayaa inoo xaqiijiyay in dhammaan waraaqahaasi taariikhdooda la bedelay looga leeyahay in lagu meelmarsado dhammaan danaha uu leeyahay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. madaxweynaha hadda xafiiska baneeyay mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa kol hore soo saaray waraaqo tirabeel ah kuwaasoo lagu ilaalinayay hantida ummadda Soomaaliyeed iyadoo la ilaalinayo waqtiga kala guurka iyo madaxweyne Farmaajo waxa uu go'aan ku gaaray in aan cidna la shaqaaleysiin karin qofna shaqadiisa laga diri karin oo dhammaan hay'adaha dawladdu ay sidooda ahaadaan ilaa ay imaanayso xukuumad cusub iyo dawlad cusub. balse hadda Rooble markii madaxweyne Farmaajo xukunkii laga tuuray waxa uu meel marsanayaa danihiisa goonida. sidoo kale Imaaraadka Carabta hadda waxa ay soo saareen cadaadis badan dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. sidoo kale saaxiibayaal waraaqahan la diray waxaa ka mid ah qaar lagu amriyay wasaaradaha qaarkood inay shaqaaleysiiyaan shakhsiyaad horey ra'iisul wasaaruhu u amray, qaar kalena la bedelay lana amray in la geeyo boosas kale oo ra'iisul wasaare Rooble u magacaabay, kuwo horey loo bedelay oo la amray in la bedeli karin maadaama taageero ay ka haysan xagga ra'iisul wasaaraha iyadoo horey u jireen amarro madaxweyne oo xilligii kala guurka mamnuucayay kala bedelidda shaqaale iyo magacaab. bisha Abriil saaxiibayaal ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble hadda waxa uu adeegsanayaa awood dheeri ah oo loo malaynayo inuu ka helayo dhinaca Damul Jadiid iyadoo saaxiibo badan oo taageero u ahaa Rooble ay hadda boosas badan u raadinayo, qaarkood wasiiro u raadinaya halka qaarka kale uu boosas kale uga raadinayo dhammaan xarumaha dawladda sida agaasimo ku-xigeenno iyo dhammaan waxa uu heli karo. nuqulada qoraalada ee ka baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxaa ka mid ah mid loo diray guddoonka golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaasoo lagu dalbanayay dadejinta ansixinta dib u eegista hindisa sharciyeedyada kalluumaysiga oo golaha wasiiradu meel mariyeen balse sharciyadooda ay diideen antidowrka guud ee qaranka taasoo u arkay inay tahay nidaam baalmarsan dowladnimada. Rooble ayaa codsaday in la dadejiyo la meel mariyay hindisa sharciyeedka xilli arrimaha kalluumaysiga iyo wada khayraadka ay isku hayaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kale xukuumaduna aysan awood u lahayn meel marinta. saaxiibayaal hadda Rooble waxa uu caadisay in uu sii qaato waxa uu awoodo gacan qabsi ah dhammaan waxa uu hadda dhacay hantida ummadda Soomaaliyeed waxaana u soo jeedaa inuu qayb dhan ku yeesho dawladda hadda dhismaysa maadaama qofka ugu horeeyay burburiyay dawladda federaalka ee madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayay isaga ahaa. Rooble oo ka faa'iideysanaya marxaladda kala guurka ayaa hadda waxa uu muuqdaa mid ku dhex gedgadoomaya sharciyada dalka. waag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa warkaad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad janaalka subscribe inoo saadhaan like na inagu dhiirigelisaan insha Allah.